maanta waxaan arkaynaa baasaboorkeeni waa hoos u dhac ku socda cidda hadda la socota baasaboorkeeni hoos u dhac waxaa jira Soomaha talaabooyinkaas aad sheegtay qayb ka mid ah inay dhab ahaayeen waayo Soomaaliya waxa ay qayb ka noqonaysaa sanadka 2025 bilowgeeda durada qadaro xubnaha aan joogtada ahayn bay ku yeelanaysaa qaramada midoobay golaha ammaanka dawladdu sideeda success iyo valid labada boylada guulo iyo guul darrooyin labada boylada laakiin mar walba waxa muhiim ah oo lagu qiimeeyaa sida u balance garaysan yihiin wixii la yaab kala lahaa waxa noqotay madaxweynaha Norway markuu la kulmay eray ahaa you have only 75 seconds bismillahir rahmanir rahim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kulan waana wanaagsan khayrtana daawanaysaa halkani waa Mansour Media magaciiguna waa Siyaad Hersare soo dhawaada falanqeyn gaar ah taas oo aan diiradda ku saari doono hadduu rabbi qadaro socdaaladii ugu dambeeyay uu sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyadoo Kenya toddobaadii ugu dambeeyay lagu haystay madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto socdaal uu ku tagay waddanka Mareykanka taas oo shacabka Kenyaanka wax iska weydiinayeen dhaqaalaha ku baxay socdaalkaasi iyo inuu ahaa mid loo baahnaa si la mid ah Soomaaliya madaxweynaheedu waxa uu muddooyinka ugu dambeeyay sameeyay safar isdaba joog ah kuwaas oo dadka siyaasadda ka faalooday iyagu sheegayaan in safaradaasi qaybo badan oo ka mid ah inaanay muhiim u ahayn qaranka abwan Cabdiweli ayaa barnaamijka ila falanqeyn doona hadduu rabbi qadaro soo dhow waa Siyaad adiga saaxiibada dadka bulshooyinka dhamaantii waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ما سنتي مركله بالوحد ففاهنا قصص سocdaaladii ugu dambeeyay uu sameeyay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo dadka arrimaha siyaasadda ka faalooday ay aad ugu dhaliilayeen safarkan isdaba joog ah ee madaxweynaha uu sameeyo dadka qaar waxay leeyihiin dawladda miyaanay lahayn wasaaradda arrimaha dibadeed oo howlahaasi loo wakiisho bal arrinkaasi maxaa kala socdaa siyada horta waa mahadsan tahay xukuumadda Xasan Sheekh waxaan maleynayaa waa termkiisa labaad oo kursiga ku soo noqdo hadda ka hor markii uu joogay qodobkii ugu weyn ee dhalisho wuxuu ahaa safaradiisa faraha badan banaanka u baxay soo noqodkiisa maanta tana kii uu la mid yahay laakiin mar walba waxa la yiraahdo political stability oo isu dheelitirka siyaasadda oo isku xiran yihiin haday noqoto dhaqaalaha haday noqoto wada shaqaynta haday noqoto xogta iyo reportingka institutionka kaleeto waa wax silsilada nidaamka dawliga markii loo fiiriyo laakiin waxaad moodaa xukuumadda iyo hadda xilligan joogto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo saaxiibadiis in all in one wax la yiraahdo ay ka jirto oo aad maleynaysid boqortooyo camal oo kale madaxweynaha uu wax ka go'aan tala walba ay madaxweynuhu uu ka timaado go'aan kasto la qaadanayo mid madaxweynuhu noqdo waxa ka saxda baarlamaanka ajendayaasha ee meel mariyaan oo kale wuxuu noqonayaa wax uu Xasan Sheekh waxa inta badan madaxweynaha uu saameyn ku leeyahay gadaalka riixay baa shaqeeya marka safaradii dabadda loogu baxayay waxaan xasuusanaa Kenya ilaa 3-4 safar oo loogu soo noqday natiijadii ugu dambeysay aan garanayno madaxweyne William Samoei Ruto markuu ka soo noqday waddanka Mareykanka hadalkii uu ku dhawaaqay oo dadka Soomaaliyeed iyo dadka caqliga u saaxiibka tusiyay halka iyo Soomaaliya maanta halka la maagan yahay ereyga ahaa hadii Soomaaliya hadii Kenya ka baxada ama ciidamada ADMIS haday ka baxaan Soomaaliya waxay noqon doontaa waxa la yiraahdo Afghanistan tii oo kale ay la mid tahay waxaan hadda la soconay oo kale oo kamid ah waliba dhalish ugu weyn muuqata intaan loo fiirin madaxweynaha iyo protocol xumada iyo waxyaalaha dhacay markii laga yimaado safarada caalamiga ee baxaya waxa la rabay kor u qaadaan xiriirka diblomaasiyadeed socodka ummadda Soomaaliyeed inay u fududaato safaradooda wadamada dibadda maadaama dad ganacsi iyo wax badan banaan oo xiriirada diblomaasiyadeed ula soo sameeyay xiriirada diblomaasiyadeed inay balaarmaan maanta waxaan arkaynaa baasaboorkeeni waa hoos u dhac ku socda cidda hadda la socota baasaboorkeeni hoos u dhac ku socda Sacuudiga iyo ugu dambeeyay hadda waxa qalqiil ka jiraaba inay dhimaan ama ay koobaan bay doonayaan waxa la yiraahdo xataa xajka iyo umrada baasaboorka lagu hadi jiray ayagoo ku eedeeyay dadka Soomaalida waa iska muhaajiriin waa dad u soo galaya magangalyo door camal oo waddanka markay yimaadaan baasaboorka tuurayaan gudaha iska galayaan aqaamo wax noocaas intay raadsadaan hadii aysan hayna xataa shaqooyin hoose iska raadsanayaan qofka xajka iyo umrada u soo baxay waxaan ognahay taasna marka waxay sameynaysaa muwaadiniinta doonaya inay soo gutaan waajibaadka xajka bay dhaawac wali ku geysanaysaa waana wadamada inta badan aan ugu furanahay waayo goobtii waxa ku taala Sacuudiga marka laga yimaado xiriirka diblomaasiyadeed iyo siyaasadda Sacuudiga marka laga yimaado iyo siyaasadda guud ee khaliijka marka laga yimaado waxaad garanaysaa waa wadamada xajkii baa loo aadaa umra loo aadaa oo meelaha Soomaalida ugu safarka badan tahay ka mid tahay ayadana waxa meesha ku sii jirta ku lifaaqan protocol xumada oo had iyo jeer arkaysa madaxweynuhu mar walba safar dabadda uu u baxo waxa dhacda waxyaalaha bulshada ay la ashqaraan maxaa ka mid ah marka waxyaalaha sadad mid laba noqon man leeyahay waxa ka mid ah safarkiisa hadda ugu dambeeyay wuxuu baxay madaxweynuhu Norway
madaxweynuhu safarkiisii Norway barnaamijka kan ka horeeyayna waan ku falanqeynaynay waxaan ku soo la fikirnay ma jirto natiijo sax ah oo looga dhawaaqi doono madaxweynuhu safarkiisii Norway ugu baxay wixii la yaab kale lahaa waxay noqotay madaxweynaha Norway markuu la kulmay eray ahaa you have only 75 seconds haddaad 75 daqiiqo second baad ilbiriqsiyad haysataa just 1 minute iyo 15 second waxa markii si guud loo fiiriyo 1 minute iyo 15 second haddaad rabtid inaad sawir la gashid you welcome haddaad rabtid inaad sawir la gashid baa lagu yiri intaas bas baa waqtiga dhanka ka hay just waxaad garan kartaa marka safarkaas budgetka inta leeg baa ku baxay waa long distance waa traveling waxa loo badan ku baxay wadan ma madaxweynuhu tusaaka u duulay isna caawa ka soo noqonay waa wadan duulistiisa iyo tagiddiisa ay qaadanaysa process muddo 3 maalmood oo kale ay qaadanaysa waxay ku tusinaysaa marka hoos u dhacyada diblomaasiyad xumo still ninka siyaasada marka dhinac kale ka fiirsan waxana waa cycle political ku sideeda markii loo qiimeynayo waa cycle midda arrimaha dibadda waxay ka turjumaysaa midda arrimaha gudaha waxa ku tusinaysaa safarada faraha badan ee maanta Xasan Shaqo banaanka ugu baxayo bulshada waxa lagu madadaaliyaa wax la yiraahdo horumaraan gaarnay United Nations kan ku biirnay deymihii baan laga cafiyay hubkii baa wana qabateyntii baan laga qaaday hubka waxyaalaha lagu intiidgelay way bulshada Soomaalida ma aqarna laakiin waxa jira Soomaha talaabooyinkaas aad sheegtay qayb kamid ah inay dhabahaayeen waayo Soomaaliya waxa ay qayb ka noqonaysaa sanadka 2025 bilowgeeda durba qadaro xubnaha aan joogtada ahayn bay ku yeelanaysaa qaramada midoobay golaha ammaanka iyadoo Pakistan ay sidoo kale iyadana wadamadaas qayb ka tahay marka Soomaaliya dhihi karo safarada qaar kamid ah waxay soo hooyeen faa'iidooyin bay dalka iyo dadka u jir Soomaaliya waa mahadsantahay way jirtaa ma sideeda horta ma ka hadlayna anagu boss negativity mooda istaagayna dawladdu sideeda success iyo failure labada boylada guulo iyo guul darrooyin labada boylada laakiin mar walba waxa muhiim ah oo lagu qiimeeyo sida u balance garaysan yihiin equivalence inay wixii isla eg yihiin oo mar walba lagu qiimeeyo war maanta guusha la keenay xaggan kalena guusha ka jirta dhaliishu waa inaysan ka badan laakiin maanta markaad u fiirisid banaanka loo baxayo procedure-radan way qornaayeen qayba kamid ah asaga Xasan Sheekh Maxamuud taramkiisi uu joogay procedure la geeyaa joogay afartii sano iyo shantii sano farmaajo uu joogay kuwa la geeyay baa jirto socday kuwa waxa la qayb kamid ah process gareey leedahay hore loo just almost way wada process gareey markii loo fiiriyo United Nations Council ka way process gareysnay ayay lagu wareejiyay kamid ahay deena cafintii yar waxaan ma garanaynaa cidi ugu badneed waqtiga badan galisay xukuumadii ka horeysay bay ahayd iyo hubka labada intaas waxa kala ku qiimaysan gudaha Soomaaliya waxa ka jira gudaha Soomaaliya iyo arrimaha dawladda matalkoodu waa inay mar walba isla eegyihiin gudaha Soomaaliya maanta waxa ka jirta faragelino waaweyn oo wadamada gobolka ay sameeyaan ama Geeska Afrika haday Ethiopia noqoto haday Kenya noqoto waxa la yiraahdo common interest guud ee ka dhaxay East Africa wax ka sii qaasa oo individual wadanka uu si gooni uga danaysanayo ayaa ka socda waxaad ka eegtaa maalinka xukunka uu ku wareegay ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud laba maamul goboleed baa la oranayay Soomaaliya ahaan siyaasad ahaan way uga aragtid wanaagsan xukuumadda hore joogtay maanta waxaad arkaysaa intii baynaysan gacanta ku jiro baliba ay ka sii fogtay bal kamid ah qayb kamid ah xabado ka dhacday iyo dil iyo dhimasho ay ka dhacday taasina waxay keenaysaa inuu madaxweynuhu ka baahan gudaha Soomaaliya wax ka jira siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya inuu warkahay waxaad ku tusaysaa waxa jirtay muddo 3 bilood oo dagaalkii la dagaalanka khawaarijta markii lagu jiray madaxweynuhu bil kamid ah wuxuu deganaa Galmudug taasi waxa ku tusinaysaa sidoo kobac u geysatay iyo iskaashi iyo ciidamada ay dhiirigelin ugu helayeen ee degmo hore la furanayo ciidamada ay soconayeen after kaas ayada markuu fashilmay oo waliba ay waxyaalaha uu ku fashilmay ay ahayd asaga iyo teamkiisu angalada kala duwan ee interest-ka kala fiirinayaan nin walba dantiisa khaaska uu fiirsanay markii loo arko baka ciidamadii Soomaaliya ayaduna watan dib looga jabay oo maanta la taliyaha amniga qaranku oo asagu afkiisa ka qartay jabkii caws weyne ka hor shabaab fara badan oo madaxa baa rabeen soo dhiibaan dawladda soo dhiibaan laakiin waxay markay jabkii ciidamada darteedii dhiirigelin bay hesho duurka sii galeen si fiican halka dib dagaalka sii waday still marka safaradan banaanka loogu baxayo horta number 1 dhaqaalihii wadanka damage fara badan bay ku yihiin way sanadkii ugu dambeeyay miisaaniyadda wadanka shabaab waxa lagu boosgareeyay wax la yiraahdo dagaalanka al-shabaab waa taamkiisi koobaad dhameystay taamkiisa aan labaad maanta uu joogo waanu garanaynaa wadanka saxarbarka halka uu gaarayo waxaanu garanaynaa dhaqdhaqaaqiisa ganacsi iyo halka uu marayo waxaanu garanaynaa wax la yiraahdo siyaasadiisa guud markii loo fiiriyo hatta wadamadii investment-ka faraha badan ku sameyn jiray wadanka inuu yaraanayo waxyaalaha badnaa wadanka soo gali jiray inay ka sii dabar go'ahayaan
still ayaduna qayb bay ka tahay marka safarka dhaqaale burburkaana ka mid ah waxa ka mid ah misunderstanding wax la yiraahdo oo siyaasadda guud markii loo fiiriyo maanta madaxweynuhu markuu inta duulo uu China u duulo das xulufo gooni oo meel ku lahaa waxay noqonaysaa ballantoodii ballanburiyo waayo markii koobaad oo dhan ba siyaasadda Soomaaliya in badan oo ka mid ah waxay ku dhisan tahay wax la ku tiirsanaan ma aha wax la yiraahdo balance oo in wax la share gareeyo laba wadan inay wax inta isbarbardhigaan laakiin dhinaca kale markaan ka fiirino soo ma jirto xiriiradaas ama safaradaas madaxweynaha uu sameeyo dalka soo in dhaqaale iyo fursado kale oo ka maqnaa inuu ku soo xaroodo soo laga ma yaabo tusaale hadda aan soo qaadano inay shaqo abuur dad ku sameeyo dhalinyarada kale dalku inuu maadaama ay uu yahay dal soo kobcay inuu helo dadka dawladda ka taageero inuu dhaqaalaha dalka kobco sidii argagixisada loola dagaalami lahaa inuu support ka helo howlahaas soo muuqdaan horta wad macsan tahay sida guud markii siyaasadda la fiirinayo waxa jirta la yiraahdo international relationship mar walba waa interest ku xiranta wadanka xiriirka kula sameysanayo in intee la eeg interest aad u haysataa ayaa meesha su'aasha isweydiinta wadamada hadda banaanka ee la aadayo dhaqaale ma ku jirto totally ma lagu bees gareyn karo waayo dhaqaalaha Soomaaliya meelaha laga kabi karo waxa kamid ah mideynta canshuuraha maamul goboleed ilaa heer federaal waxa la yiraahdo kaabadaha yaasha dhaqaalaha Soomaalida ay haysato sida dekedaha airportada iyo waxay la halmaala ee ganacsiga ee khayraadka wadanka oo la soo saaro ayagana in la qabay dabcan qayb ka taadleedahay marka taas totally meesha ma ku jirto budgetka kuma jirto wadan islaameed oo loo safro waxay qaadanaysaa wadan islaameed oo loo safraayo waxay qaadanaysaa wax la yiraahdo inay dhaqaale burbur geyso waxay geysanaysaa wax la yiraahdo inay keento aragti kala duwan in laga aamino waxa dambo keenaysa wadamo xataa heshiis caalami la gashay sida wadamada waxa jira security-ga naga taageera haday noqoto tababarada ciidamada haday noqoto qalabaadka iyo agabka ciidanka oo kale haday noqoto sirdoonka haday noqoto diyaaradaha darar la'aanta sida Bayraktar iyo diyaaradda Mareykanka oo kale still effective keenaysa marka maanta wadan kale ay enemy isku ahaayeen barnaamijkeena gabguni ganaanad buu ku sii socdaa ugu dambeyntii maxaad is leedahay xalku uu noqon karaa just xasan wuxuu noqon karaa xalka iyo dawladiisu ay noqon kartaa ama Soomaaliya oo dhan baan oran karnaa xalkeedu waxa ay noqonaysaa weel gunta laga unka waxaan ognahay Soomaaliya maanta sida ay u si kala furfurmayso xaqiiqatan marka loo hadlo way jirtaa guulo iyo waxyaalo badan oo la taaban karo Soomaaliya ku tilaabsatay laakiin indaad wali kama turjumayso Soomaalinimada iyo dawladnimada Soomaalinimada iyo dawladnimada ay rabto xataa kow in la mideeyo ummadda gudaha joogta la sameeyo waxa la yiraahdo dhaqaalaha hoose ee income-ka ama canshuuraha ama kaabayaasha dhaqaalaha kale ee khayraadku ay kamid yihiin wax soo saarka badda iyo birigaba in kuwaas waqti badan la geliyo la investigareeyo ayay noqonaysaa taasana u maleynaya inay kabi karto halka noqon karto aad ma santahay kaasi waxa uu ahaa Abwaan Cabdiweli Yuusuf oo isaguna la falanqeynayay qodobkan ku aadan safarada uu ku bixinayo madaxweynaha dalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud wadamada gobolka iyo sidoo kale guud ahaan caalamka intiisa kale barnaamijka dhanka xiriirinta anigoo si heer sare idin la socodsiinayay dhanka kaamirada saaxiibkay AK waa joogay barnaamijkan midkiisa kale intayna ku kulmi doono waa bahda Mansoor Media oo idin la sidaas iyo nabadgelyo hana iloobina tala iyo tusaaleyn waxaad haysaan qaybta commentiga barnaamijka kula wadaagtaan sidoo kale aad barnaamijka soo follow gareysaan si share gareysaan si asxaab badan ugu gaaro barnaamijkan midkiisa kale intayna ku kulmayno waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo